dowladda Pakistan ayaa gebi ahaanba iskaga baxday shirka caalamiga ah ee hogaamiyaasha muslimiinta ee ka dhacaya dalka Malaysia. Wasiirka arrimaha dibadda dalka Pakistan, Mr. Shah Mahmood Qureshi, ayaa sheegay in sababaha ay ugu baxaan shirka ay la xiriiro walaac ay ka qabaan kala qaybsanaanta muslimiinta. Wadamada Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga oo xulafo la ah dalka Pakistan ayaa cabsi ugu muujiyay ka qaybgalka xukuumadda Islamabad ee shirka ka dhacaya magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia. Ra'iisul Wasaaraha dalka Malaysia, Mahathir Mohamad, oo dalkiisa martigelinayo shirka, ayaa maalin ka hor sheegay in cadaalad darro ay tahay cunaqabataynta Mareykanka saaray Iran. Mr. Qureshi oo warfidiyeenka kula hadlayay magaalada caasimada ah ee Islamabad in ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan aanu ka qaybgeli doonin shirka hogaamiyaasha Islaamka. Hogaamiyaasha shirkan ka qaybgalaysa ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan, isagoo dalka Sacuudi Carabiya u arko in madashan ay iskugu imanayaan hogaamiyaasha Islaamka mid lagu abuurayo isbahaysi ka dhan ah dinihiisa caalamiga ah.